Waqtigii taabiciyiinta magaalada ugu weyn ee Muslimiintu ay wax ka bartaan waxay ahayd magaalada Baghdad ee haatan caasimadda u ah dalka Ciraaq. Sidoo kale waxay ahayd magaalada laga maamulo dowladda Islaamka. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa magaalada yimid nin ka socda boqortooyadii Ruumka, kaasoo u sheegay khaliifka Muslimiinta inuu hayo 3 su'aalood oo hadday Muslimiintu ka jawaabaan uu siin doono maal badan oo uu ka keenay boqorka Ruumka. Khaliifkii ayaa isugu yeeray dhammaan culimadii Muslimiinta iyo dhammaan wixii aqoon-yahano ahaa. Kadib ayuu amray ninkii Ruumaaniga ahaa inuu su'aalihiisa soo daayo. Ninkii ayaa weydiiyey Muslimiinta halkaas isugu timid 3 su'aalood oo uu hayay, wuxuuna ku bilaabay: 1. Ilaahay hortiisa maxaa jiray? 2. Ilaahay dhankee ayuu u jihaystaa? 3. Ilaahay muxuu hayaa hadda ama iminka? Ruux hadla ayaa la waayay. Shibshib ayaa ka dhacday. Xoogaa kadib ayaa wiil yar oo la fadhiya aabbihii istaagay oo yidhi: Aabbe, anaa ka jawaabaya su'aalahaas, anigaana idinka aamusin doono. Kadib ayuu wiilkii yaraa fasax ka qaatay khaliifkii Muslimiinta. Markaasuu ku yidhi Roomaanigii: Ma taqaanaa sida wax loo tiriyo? Haa, ayuu ku jawaabay Roomaanigii. Markaas ayuu wiilkii yaraa ku yidhi: Waxaan kaa rabaa inaad tiriso tiro ilaa iyo 10 ah. Waa inaad ka bilowdaa kor adigoo hoos u tirinaya. Roomaanigii ayaa bilaabay 9, 8, 7 ilaa uu ka gaaray 1. Markii uu 1 gaaray ayuu aamusay. Wiilkii yaraa ayaa yidhi: Maxaa ka dambeeya 1? Markaasuu Roomaanigii ugu jawaabay: Waxba, 1 ayaa u dambeeya. Wiilkii yaraa ayaa yidhi: Haddii ay tiro 1 ugu dambeyso oo aad dhaafin weysay, sideed marka ku weydiisay waxa jiro ka gadaal? Midka keliga ah, midka 1-ga ah, midka joogidda abidka ah, midka ugu horeeya, midka ugu dambeeya, iyo midka daa'imka ah. Roomaanigii ayaa la dhacay jawaabta canuga yar. Kadib wiilkii yaraa ayaa bilaabay ka jawaabista su'aashii labaad ee ahayd: Ilaahay dhankee ayuu u jihaystaa? Wiilkii yaraa ayaa yidhi: Shumac ha la keeno, kadibna ha la daaro. Markii la daaro ayuu wiilkii weydiiyey: Ii sheeg halka uu holacu aadayo ama u jihaysanayo. Roomaanigii ayaa ku jawaabay: Holaca waa iftiin aanan u jihaysanayn dhanna waqooyi, koonfur, bari iyo galbeed, wuuna ifinayaa dhammaantood. Wiilkii yaraa ayaa ku jawaabay: Haddii iftiinkan yar uu iftiiminaya dhammaan 4 jiho oo uusan ku ekayn dhanna, maxaad u malayn iftiinka nuuru samaawaati wal ard? Ilaahay dhan walba ayuu eegayaa, waana iftiinka dhammaan dhulka iyo samaawaadka. Ninkii ayaa haddana la dhacay jawaabta wiilka yar. Wiilkii xigmadda Ilaahay ku manaystay intuusan ka jawaabin su'aashii 3aad ayuu wuxuu ku yidhi Roomaanigii: Adiga mimbar ayaad fuushaa, anigana dhulka ayaan taaganahay. Hase yeeshee aniga ayaa layga rabaa jawaab celin. Marka miyaysan fiicneen inaad soo degto si aan aniga mimbarka u fuulo, si dadka dhammaantood ay u maqlaan jawaab celintayda? Roomaanigii ayaa arrintaas aqbalay oo ka soo degay mimbarkii. Wiilkii yaraa ayaana ku fadhiistay mimbarkii oo uu ka soo degay ninkii Roomaaniga ahaa. Kadib ayaa la weydiiyey su'aashii 3aad oo ahayd: Ilaahay muxuu hayaa iminka? Wiilkii yaraa ayaa ku jawaabay: Hadda Ilaahay wuxuu sababay inuu beenaale ka soo dejiyo mimbar sare, kuna beddela kii aaminsanaa. Iminka Ilaahayga aad weydiinaysa waxa uu hayo, wuxuu sababay inuu beenaale diintiisa ku jeesjeesayo, uu dhulka dhigo, korna u qaada kii aaminsanaa. Ilaahay maalin walba xaalkiisa waa sidii uu isagu doono. Markaas ayuu wiilkii akhriyey aayadda 29aad ee suuraturaxmaan oo ah: Yas'aluhu man fi samaawaati wal ard, kulla yawmin huwa fii shaan. Ilaahay waxaa baryaya khalqiga ku nool samooyinka iyo kuwa dhulka oo dhan. Maalin walbana Ilaahay arrin buu ku sugan yahay, maamulaya oo uu wadaa. Kadib ninkii Roomaaniga ahaa ayaa isaga oo qalbijab ku dhacay wuxuu ku noqday dalkiisii. Wiilkii yaraana wuxuu Ilaahay sababay inuu noqdo imaam aad loo xurmeeyo, lagana qaatay diinta Islaamka. Wiilkii yaraa ee xigmadda badnaa wuxuu noqday imaamkii weynaa ee Islaamka ee loo yaqaanay, Allah u raxmaday, al-Imaam Abu Xaniifa. Allahu Akbar. Waxaan rajeynayaa saaxiibayaal inaad qisadan ka faa'iidaysateen. La wadaaga asxaabta kale si ay ugu cibro qaataan ugana faa'iidaystaan. Ramadaan Mubaarak.